bal ka warama haddii ay wadamada muslimiinta oo dhan ku midoobaan hal wadan. Wadamada Islaamka tiradoodu waxay gaaraysaa ilaa 56 wadan, kuwaas oo ku kala yaala 4 qaaradood. Qaaradda Afrika waxaa ku taala 26 wadan, qaaradda Aasiyana waxaa ku taala 27 wadan, qaaradda Yurubna waxaa ku yaala 1 wadan, waana wadanka Albania. South Americana waxaa ku taala 2 wadan oo Islaam ah, waxayna kala yihiin Suriname iyo Guyana. Haddii aan eegno dadka muslimiinta oo dhan, tiradoodu waxay gaaraysaa ilaa 2 bilyan oo ruux, waxayna ka dhigan tahay 23% inay ka yihiin muslimiinta dadweynaha caalamka ku nool. Wadanka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu tirada badanna waa wadanka Indonesia, oo booska 4aad kaga jira wadamada ugu dadka badan caalamka, waxayna gaarayaan tirada dadka wadankaasi ilaa 250 milyan oo ruux. Wadanka labaadna waa Pakistan, oo ay ku nool yihiin ilaa 180 milyan oo ruux. Wadanka saddexaadna waa Bangladesh, tirada dadweynaha wadankaasina waxay gaarayaan ilaa 150 milyan oo ruux. Dhanka kale, wadanka ugu dhulka balaaran wadamada Islaamka waa Kazakhstan, wuxuuna booska 9aad kaga jira wadamada ugu dhulalka waaweyn caalamka. Wadankaasi masaaxadiisana waxay gaaraysaa ilaa 2,720,000 kilomitir iskuweer. Wadanka Suudaanna masaaxadiisa waxay gaaraysay intaan la kala qaybin ka hor 2,500,000 kilomitir iskuweer. Wadanka saddexaadna waa Algeria, oo booska 10aad kaga jira wadamada ugu dhulalka balaaran caalamka. Masaaxadiisana waxay gaaraysaa ilaa 2,380,000 kilomitir iskuweer, ayadoo wadanka ugu dhulka yar wadamada Islaamkana uu yahay jasiiradda Maldives, oo masaaxadiisuna ay gaarayso ilaa 300 kilomitir iskuweer. Haddii la isu geeyana dhammaan dhulalkaas ay muslimiinta degaan, masaaxadiisa waxay gaaraysaa ku dhowaad 32 milyan kilomitir iskuweer, waxayna ka dhigan tahay in dhulkaasi uu ka weyn yahay isku darka dhulalka ay ku fadhiyaan wadamada Mareykanka, China iyo Canada, wuxuuna dhulkaasi ku dhowaanayaa labalaab dhulka uu ku fadhiyo wadanka Ruushka. Goobahaas ay muslimiinta degaanna waxaa mara webiyada ugu muhiimsan uguna waaweyn, sida webiga Niil, webiga Dajla, Furaat, Sind, Niger iyo webiga Shabeelle. Intaasna waxaa dheer badaha iyo jasiiradaha muhiimka ah ee ku yaala goobahaasi. Taasna waxay suurtagal ka dhigaysaa in dowladda Islaamka ay koontaroosho wadooyinka ay maraan ganacsiga caalamiga, maadaama ay gacanta ku hayso goobaha ay dhacaan Badda Cas, Badda Carbeed, Baabul Mandab, Kanaalka Suways iyo weliba Jabal Taariq. Balse intaas oo dhan waxay ku iman kartaa inay midoobaan dhammaan wadamada muslimiinta oo aysan u aaba yeelin xuduud beenaadka uu cadowgu sameeyey. Sidoo kale, dhulalkaas ay muslimiinta degaan waxaa ku hoos jira shidaal aad u fara badan, waxaana shidaalkaas laga helaa ilaa 35 wadan oo Islaam ah, ayadoo wadamada Carabta oo keliya ay soo saaraan 43% shidaalka laga soo saaro caalamka oo dhan, waxayna haystaan 73% kaydka shidaalka ee yaala dunida. Taasna waxay dowladda Islaamka awood u siinaysaa inay maamusho suuqyada caalamiga ah ee lagu kala iibsado shidaalka, kuna qasabto dowladaha iibsada shidaalka inay kaga iibsadaan sicirkii ay doonto shidaalka ay soo saarto oo aad u fara badan awgeed. Gaaska dabiicigana waxaa laga helaa ilaa 25 wadan oo Islaam ah, kaydka ay haystaan wadamadaasina wuxuu gaarayaa ilaa 54.5 trilyan mitir cubic, oo u dhiganta 40% kaydka gaaska dabiiciga ah ee yaala dunida. Sidoo kalena, wadamada Islaamka waxay soo saaraan macaadin kala duwan oo ay ka mid yihiin phosphate, tin, aluminium, lead, chromium, manganese iyo macaadino kale, kuwaas oo loo isticmaalo wax soo saarka warshadaha. Haddii aan eegno dhanka hubka iyo ciidankana, dowladaha Islaamka waxay ku qarash gareeyeen sanadkii 2015 lacag gaaraysa ilaa 200 bilyan oo dollar. Wadanka ugu horeeyana waa wadanka Sacuudiga oo ku qarash gareeyay ilaa 82 bilyan oo dollar. Wadanka Turkigana wuxuu ku qarash gareeyay lacag gaaraysa ilaa 18 bilyan oo dollar. Imaaraadka Carabtana wuxuu ku qarash gareeyay ilaa 16 bilyan oo dollar. Haddii hal meel la isugu geeyo hubka ay haystaan dowladahaasi, waxaa ka samaysmi kara saanad militari oo aad u xoog badan, waxayna dowladdaasi u sarayn doontaa tirada doomaha dagaalka. Diyaaradahana waxaa booska labaad gali doono wadanka Mareykanka. Dhanka taangiyada dagaalkana waxaa booska labaad gali doono wadanka Ruushka.
sidaas darteedna miisaaniyadda dhanka militariga ee dowladdaasina waxay geli doontaa booska saddexaad Mareykanka iyo China kadib. Waa haddii ay hubka ayada samaysato oo aysan ka soo iibsan wadamo kale. ciidamada ay haysatana tiradooda waxay gaari doontaa ilaa 2,500,000 oo askari, waxayna ka tiro badnaan doonaan ciidamada waddanka China oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 2,300,000 oo askari. marka la eego tirakoobyadana 10 dowladood ee ugu xooga badan caalamka waxaa ka mid ah wadamo Islaam ah oo ay ka mid yihiin Pakistan, Masar, Turki iyo Iiraan. sidoo kalena dowladaha haysta hubka nuclear-ka waxaa ka mid ah dowlado Islaam ah sida Pakistan iyo Iiraan. isku soo wada duub muslimiinta tiradaas la eg haddii ay ku midoobaan raayada Islaamka oo ciidanka sidaa u tirada badanna loo sameeyo hal hoggaan oo dhulka sidaa u weynna laga dhigo hal wadan juqraafi ahaan, dhaqaalahaas faraha badanna laga maamulo hal meel, halkaas waxaa ka dhalan doonta dowladda ugu weyn ee caalamka soo marta taariikhdii hore iyo midda haddaba. mana jiri doono waddan ay muslimiin degan yihiin oo ka cabanaya faqri iyo gaajo. sidoo kalena lama arki doono dhul muslimiinta xoog looga haysto, waxayna dowladdaasi awood u leedahay inay dib u xurayso Masjidul Aqsa iyo dhulalka kale ee ku hoos jira ixtilaalka gaalada, waxayna difaaci doontaa dowladdaasi dhammaan xuduudaha dhulalka Islaamka. ugu dambayn, qof walbow markii aad garatay ahmiyadda ay leedahay inay muslimiinta midoobaan, waxaad isweydiisaa maxaa ka hortaagan muslimiinta inay midoobaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا